tahay maanta wiilashaydii inay isku bedelayaan xilka macallimiinta ma arki jirtay wiilkiisu markuu maxaa ku radaa uu arko wiilkiisa markaas ana wax soo baray xaq u noqday jaamacadda uu ka baxo ama odayaashii Soomaaliyeed dhaqan ahaan markii inta caruurta u korto ay geelo u ilaaliyaan asagoo faraxsan buu guriga joog jiray farxadaydu taasoo kale maanta la mid tahay wiilashaydii inay maanta ayagu isku bedelayaan si gaar ah ii taabanaysaa waxaan leeyahay guulaysta idinka iyo kuwa soo socdaba waana loo baahan yahay raadkii ciidankan ee taxanaha ahaa ee caanka ku ahaa inaad ku socotaan aad baa loo baahan yahay waana rajaynaya waxaan rabaa inaan odawa u mahad celiyo wax fiican buu ka qabtay ciidankan time xun oo dagaal oo mataqaanaa dadku uusan wada dareemi karin maxaa yeelay ciidanka lama dhisi karo markuu dagaal ku jiro ciidanka waxaa la dhisaa isagoo nabada laakiin qof kastoo meeshan taliya ka noqda laba problem baa qoorta u galaysa ciidan dhisnina waa laga rabaa ciidan dagaalna waa laga rabaa marka si la iskugu keeno loo balance garay always way adag tahay nin dhifaa balance garayn kara marka odawa waa balance garay aad iyo aad buu mahadsanyahay mahad baan u celinayaa Ibrahim muduu joogay way arag buu ahaa wixii la sameynayay asagana waxaan u rajaynayaa meel fiican oo haboon baa looga tagay inuu ku sii wado aad iyo aad baan mataqaanaa asagana hambalyo waxaan leeyahay ku soo dhow oo ka shaqee oo dhis ciidankan meeshan wasaaradda gaashaandhigga haddaan wax yar u noqdo taariikhdeeda meeshan 3 nin baa dhagax dhigay Allah u naxariiso saddexdii waa dhinteen salaad gabadha kadiye Maxamed Ali Samater iyo Abdul Fadil isla socdaa dhagax dhigay meeshan midna wasiir gaashaandhigga Samater Nataliye Abdullah wuxuu ku xigeenka koowaad marka taariikh gaar ah bay u leedahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maxaa yeelay odayaashii aasayaasha ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa dhagax dhigay marka taariikhdaas waxay u baahan tahay in la xuso oo markii la yiraahdo lagu xuso nimankii fikirka iska lahaa meeshan quruxda badan runtii maxaan ku radaa hadda waxaad moodaa inuu gaas buur dheer bay ahaan jirtay laakiin inay gaaban tahay la mooda marka ayadana taariikhdaas in la xuso aad iyo aad baa loogu baahayeen waxaan rabaa laba qodob oo aan badnayn inaan ka iraahdo intaa markaan ka baxo labada qodob oo aniga markaan taliyaha ka ahaa oo aan isku dhaliili jiray oo fulin waayay oo haddana weli fulin baan rabaa inaan prime ministerka iyo wasiirka gaashaandhigga uu xusuusiyo in loo baahan yahay institutionkan ciidamada la yiraahdo waa institutionkii adduunka oo dhan ugu horeeyay adduunku wuxuu soo maray warlorro boqorro magaciis kul ciidamay lahaayeen ciidamadu marka waxay u horeeyaan waxay jireen waxa ugu horeeya dadku samaystay adduunku samaystay muddooyin fara badan baa la soo maray muddooyin fara badan dagaalkii labaad wixii ka dambeeyay ciidamada waa fariisteen waxa la sameeyay organic la isku raacsan yahay oo khilaaf yar leh ama east noqo ama west noqo organicdaas maxay ahayd in la sameeyo ciidamada loo sameeyo waxa lagu kala gedisan yahay waa wadan walba awoodda hubkiisa laakiin sida kale waa laga siinayaa for example haddii infantry loo unit kasta oo adduunka ka jira unug buu leeyahay koox buu leeyahay horin buu leeyahay awl ma jirin waaga sore wixii hore ma jirin dagaalkii labaad baa lagu saleeyay oo samaysmay marka organicadu waa wax adduunka jira east west baa la yiraahdaa waxay ku kala disan yihiin only laba shay waxay ku kala disan yihiin qolo walba hubkay ku kuwaysantahay iyadu oo haysato unugyada qaar baa waxa arkaysa waa 11 unugna waxa arkaysa waa 7 sababta saas u yiraahdeen waxa weeye 7 nin oo hub khatar wadata 9 looma baahna in laga dhigo laakiin markuu hubku ku liito dadka ay u badiyaan organicadana waa intaas ku salaysantay ninka nuclear haysta uma baahna guutooyin infantry inuu kaxeeyo marka inta lagu kala geysay marka meesha ugu goleeyay waxa weeye ciidan wuxuu ka kooban 3 qaybood 3 qaybood buu ka kooban yahay ciidan kasta sarkaal xigeen iyo askari annaga waxa ciidanka iyagu wuxuu ku sameeyay sarkaal iyo askari wax u dhaxay malaha runtii muddadii aan hayay 2 jeer aan soo maray wax badan baan ka shaqeeyay in la helo sarkaal xigeen laakiin ma ku guuleysan
maamuladii iga dambeeyana ilaa hadda kuma guulaysan prime ministerka maanta waxaan u soo jeedinayaa oo ka codsanaya ciidanku siduu u dhismo laf dhabarti baa ka maqan qofku hadduu dhabarka ka jiran yahay ma kaco ciidanka sarkaal xigeenku waa laf dhabarka ciidanka siduu u socdo askariga 100 ninka sarkaalka ee taliya horinta haddii la yiraahdo 100ka nin baa xukuma 100ka nin ma baran karo saw laakiin ninka ugu hooseeya kala yaqaana oo u sheegi kara oo dhihi kara kan waa askari fiican kan waa askari xul annagana meeshaas naga maqan waxa wadna experiment adduunka ka soo gudbay oo shaqeynay marka waxa codsi ka lahayn kharashkoodu ma badna laakiin in la xuso oo taliyaha lagu amro la yiraahdo u soo propose gare maxaa ku filan xusida ka qiimo leh dhaqaalaha ma laakiin in la xuso ninkan inuu yahay hadda ka hor baan waxaan ku iri maalin nin aan aqoon jiray oo albaabka gaash wasaaradda taliska madaxtooyada taagan anuu aqoon jiray soo laba alfaan aqoon jiray saddex alfaan gaashaalo sar u labisay